soo dhawaada jaalayaal marka hore waxaan idinkugu hambaliyeynayaa bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan sidaas awgeed waxaan muuqaalada idin soo deyn doonaa hal saac habeenimo afurka kadib tiimka Beta Squad waxay maanta soo sameeyeen tartan loogu magac daray Family Feud waxaana tartankan daadihin doona Chunks oo iska dhigaya Steve Harvey aan idin sharxo sida uu tartanka u dhacayo labada koox waxay ku tartami doonaan su'aalo aqoon guud ah waxaana lagu bilaabi doonaa labada koox kabtanadooda midkii bixiya jawaabta ugu dhibcaha badan ayaa go'aansan doona inay tiimkiisa ka sii jawaabayaan isla su'aalahaas oo jawaabo kala leh tiimka markaas la weydiinayo su'aalaha hadday 3 jeer jawaabta qaldaan waxaa fursada loo wareejin doonaa kooxda kale oo haysata kaliya hal fursad oo ay ku jawaabaan hadday dhacdo inay qaldaan su'aalaha meesha ayaa lagu joojin doonaa kadibna Chunks ayaa dulmari doona dhammaan jawaabihii laga rabay iyo dhibcihii ku xusnaa tiimkii shaqaystay ayaana dhibcahooda la siin doonaa fadlan haddaad YouTube-keena ku xusub tahay subscribe noo saar Chunks wuxuu kala bartaa tartamayaasha labada kooxood tiimka koowaad waa wada Soomaali tiimka labaadna wadamo kala duwan ayay ka soo jeedaan kadib kabtanada ayuu u wacaa marka uu su'aasha akhriyo qofkii badhanka hor riixa ayaa jawaabta laga sugayaa su'aasha koowaad waxaa la weydiiyaa sheeg wadan ku hadla luqadda Isbaanishka Fili ayaa taabtay badhanka oo ka socda kooxda labaad wuxuuna ku jawaabay Colombia balse qalad ayay ahayd waxaana ka faa'iideysanaya kabtanka kooxda Soomaalida wuxuuna ku jawaabay Spain oo ah jawaabta koowaad ee ugu dhibcaha badan maadaama tiimka Soomaalida ay ka jawaabeen su'aasha iyaga ayaa fursad loo siin doona inay dhameystiraan jawaabaha dhiman hadday 3 jeer qaldaan tiimka labaad ayaa fursad la siin doona Sharky ayaa la weydiiyaa isla su'aashii Argentina ayuuna ku jawaabaa jawaabta shanaad ayayna ahayd AJ-na Mexico ayuu ku jawaabay waana jawaabta labaad ee ugu dhibcaha badan mar kale ayaa Darkest su'aasha la weydiiyaa Peru ayuuna ku jawaabaa waana qalad 2 jeer ayaa u harsan hadday qaldaan tiimka kale ayaa fursad la siin doona Sharkyna Chile ayuu ku jawaabay waana qalad AJ-na Portugal ayuu ku jawaabay si la mid ah qalad ayay noqotay taas oo la macnaa inay 3 jeer qaldeen waxaana fursad la siiyay tiimka kale waxayna ku jawaabeen Ecuador iyadana sidoo kale waa qalad sidaas darteed waxaa lagu dhawaaqi doonaa jawaabihii laga rabay iyo dhibcahooda tiimka Soomaalida 66 dhibic ayay shaqaysteen su'aasha labaad Nico iyo Sharky ayaa soo baxaya waxaana la weydiiyay inay sheegaan erey u dhawaaqma sida election Nico maadaama uu isaga hor taabtay reaction ayuu ku jawaabay oo ahayd jawaabta labaad ee ugu dhibcaha badan Sharky markii la weydiiyeyna ejection ayuu ku jawaabay balse qalad ayay noqotay waxaana Janice kala siin doonaa Nico kooxdiisa Kenya ayaa laga bilaabaa protection ayuuna ku jawaabaa jawaabta shanaad ayayna noqotay Fili markii la weydiiyay deception ayuu ku jawaabay waana qalad Nico selection ayuu ku jawaabay waana jawaabta koowaad ee ugu dhibcaha badan Kenny correction ayuu ku jawaabay balse waa qalad Fili ayay su'aasha ku soo laabataa balse jawaab qaldan ayuu bixiyay 3 jeer ayay qaldeen tiimkan waxaana fursad la siin doonaa tiimka Soomaalida Darkest wuxuu ku jawaabaa reflection balse qalad ayay ahayd Chunks ayaana ka wada jawaabi doona jawaabaha dhiman iyo dhibcahooda tiimka labaadna waxay heleen 60 dhibcood su'aasha saddexaad waxaa loo wacaa Kenny iyo AJ waxaa la weydiiyaa sheeg wax marka aad sameynaysid aad isticmaasho bishimahaaga ama faruuryahaaga Kenny wuxuu ku jawaabaa kissing oo ahayd jawaabta koowaad ee ugu dhibcaha badan Fili singing ayuu ku jawaabaa oo ahayd jawaabta afaraad Nico-na wuxuu ku jawaabaa eating balse jawaab qaldan ayay ahayd Kenny Robin ayuu ku jawaabaa waana qalad Fili talking ayuu dhahaa waana jawaabta labaad ee ugu dhibcaha badan Nico jawaab qaldan ayuu bixiyay waxaana hal fursad la siin doonaa tiimka Soomaalida Smoking ayay ku jawaabeen qalad ayayna ahayd Chunks ayaa jawaabaha iyo dhibcahooda ku dhawaaqi doona tiimka labaadna waxay heleen isku dar 143 dhibcood Chunks wuxuu tiimka Soomaalida ku dhahaa qaranka Soomaaliyeed ayaad hoos u dhigteen mar kale kabtanada ayaa loo wacaa waana su'aasha afaraad Fili iyadoon su'aasha dhammaan ayuu badhan ka taabtaa waxaana lagu qasbaa inuu ka jawaabo su'aal uusan aqoon waxay tahay phone ayuuna dhahaa waana qalad su'aashana waxay ahayd sheeg waxa uu qofka ku keedin karo qolka kaydka Darkest wuxuu ku jawaabaa wine waana jawaabta ugu dhibcaha badan Sharky Barrels ayuu dhahaa waana qalad AJ-na wuxuu dhahaa kidnapped victim oo u dhiganta jawaabta saddexaad Darkest wuxuu ku jawaabaa shovel jawaabta afraad ayayna u dhigantaa tiimka kale way murmaan haddana waa laga gar helaa Sharky ayaa la weydiiyaa bettings ayuu dhahaa waana qalad hal fursad ayaana u hartay Fili wuxuu arkay Sharky oo AJ u qishaya inta uu xanaaqo ayuu Chunks ku dhahaa axsaan samee kuwan kala ilaali AJ asna wuu qalday tiimka labaad ayaana Janice la siiyay wayna khasaariyeen kadib Chunks wuxuu bixiyaa jawaabaha iyo dhibcahooda oo dhameystiran Soomaalidana waxay helaan isku dar 127 dhibcood waxaa loo wacaa Nico iyo Sharky waxaa la weydiiyay sheeg waxaad ku samayn lahayd haddii aad bakhtiyaa nasiib ku guulaysatay Sharky oo badhanka hortaabtay ayaana ku jawaabaya a brand new house waana jawaabta ugu dhibcaha badan sidaas darteed tiimka Soomaalida ayaa la weydiiyaa su'aalaha AJ wuxuu ku jawaabaa car waana jawaabta afraad Darkest holiday ayuu ku jawaabaa oo u dhiganta jawaabta labaad ee ugu dhibcaha badan kadibna Chunks shaarbaha ayuu iska dejiyaa isagoo sheegaya inay kulaalku hayaan Sharky markii la weydiiyay wuu qalday AJ-na si la mid ah Darkestna kama roonaan isna wuu qalday waxaana Janice la siiyay tiimka labaad iyagana way qaldeen
kadib Janks ayaa bixiyay jawaabaha iyo dhibcahooda. Intuu jawaabaha sheegayay wuxuu nambarka shanaad ka dhigay Jewelry si uu u arko falcelinta Felix. kadibna wuxuu dhahaa waa beentay. Tiimka Soomaalida ayaana helay isku dar 194 dhibcood. intaan loo gudbin wareegga ugu dambeeya waxay tiimka Soomaalida banaanka isaga saaraan hal qof oo u fariisanaya finalka. kadibna Darkest waxaa 15 sekin lagu weydiin doonaa su'aalo. inta uu ka jawaabo ayaana loo qiimeyn doonaa. 4 su'aal ayuu kaga jawaabay waxaana loogu qiimeeyay 65 dhibcood. kadibna Sharky ayaa la soo xariyay waxaana la weydiin doonaa isla su'aalihii. wuxuu keeno ayaana loogu dari doonaa intuu Darkest shaqeeyay. Sharky su'aalihii la weydiiyay hal xitaa kama sixin. kadibna waxaa lagu amraa inay soo dirsadaan min hal qof. Kenny iyo AJ ayna soo dirsadeen. intaan su'aasha la dhameyn Kenny wuu degdegay markii lagu khasbay inuu ka jawaabana wrestling oo ahayd jawaabta shanaad ayuu doortay. AJ-na gymnastic ayuu ku jawaabay oo ahayd jawaabta labaad oo ugu dhibcaha badan. sidaas ayayna ku guuleysteen tiimka Soomaalida. fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay like noo saar. mahadsanid jaalle. Somalia! When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh!